muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha. Inta aan bilaabin sharxaadda waxaan idinka codsanaynaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saartaan. Uurka mataanaha waa hadiyad Allah uu bixiyo. Haddaba muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha. Waxyaabaha dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha waxaa ka mid ah da'da dumarka. Dumarka da'doodu ka weyn tahay 30 sano waxay nasiib u leeyihiin inay qaadaan uurka mataanaha. Waxaa la arkay dumarka da'dooda ka weyn tahay 30 sano in aad u badan yahay xaddiga hormoonka loo yaqaano FSH ama hormoonka la yiraahdo follicular stimulating hormone. dumarka ku jiro da'da ka sare 30 sano waxaa aad u badan hormoonkaas kaas oo sababa in ugxaan-sidayaasha soo daayaan wax ka badan hal ugxaan, oo marka hormoonkaas siyaado waxaa la arkaa in ugxaan-sidayaasha soo daayaan 2 ugxaan. sidaasna waxaa ku samaysmo uurka mataanaha. waxyaabaha kale ee dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha waxaa ka mid ah dumarka aadka u caylan ama dumarka BMI jirkooda ka weyn yahay 30. dumarka aadka u caylan waxay nasiib u leeyihiin inay qaadaan uurka mataanaha. taasna waxaa u sabab ah baruurta badan ee jirka waxay badisaa hormoonka loo yaqaano estrogen. estrogen markuu batana waxaa dhacdo ugxaan-sidayaasha shaqadooda badato, taasoo ugu dambeyn sababta in la soo daayo wax ka badan hal ugxaan, oo waxaa soo baxda 2 ugxaan. markaasna waxaa samaysmo uurka mataanaha. waxyaabaha kale ee dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha waxaa ka mid ah joogga ama dhirirka dumarka. waxaa la sheegaa in dumarka dheerdheer ay nasiib u leeyihiin inay qaadaan uurka mataanaha, taasoo sababteeda la garan haddana waxaa loo tiiriyaa ama loo aaneeyaa inay la xiriirto nafaqada. sidoo kale waxyaabaha dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha waxaa ka mid ah naas nuujinta. dumarka naaska nuujiyo waxaa la sheegay markay uur qaadaan inay qaadaan uur mataanaha. inkastoo naas nuujinta ka hortagto inuu uur yimaado, haddana dumarka naaska nuujinaya markay uur qaadaan waxaa la arkaa in inta badan ubadka noqdo mataano. waxyaabaha kale ee dumarka ka saacido inay qaadaan uurka mataanaha waxaa ka mid ah daawooyinka lagu daaweeyo dhalmo-la'aanta dumarka. daawooyinka lagu daaweeyo dhalmo-la'aanta dumarka waxay sababaan in uurka noqdo mataano.